soo dhawaada akhyaarta videoga maanta waxa ugu talagalay laba arinood inaan ugu hadlo mid waa kulanka isbuuca ee ugu weyn kooxda Chelsea waxay soo dhaweey doontaa kooxda Man United iyo Erik ten Hag macalinka Manchester United iyo Ronaldo xaaladooda halka ay kala marayso waayahay kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtid haddii aad kusoo gaaro videogan sii share garay oo asxaabtaada la wadaag oo ku maasan tahay commentigaada iyo page-ka sida maalmahan aad ula socotid waayahay aan ku hormaro Ronaldo iyo Erik ten Hag macalinka Manchester United xaaladda ee hadda ay ku sugan yihiin macalinka sidoo cadeeyay wuxuu yiri Ronaldo kama mid ahan Manchester United kulanka ay ka hortagayaan kooxda Chelsea Ronaldo waa laga soo tagay training-kan wuxuu la sameynayaa kooxda under 21 mid haddaan ka dhaho Ronaldo wuxuu ku soo aaday xaalad oo Manchester United ku jirto dhismo waan ognahay Ronaldo mar waliba wuxuu challenge kula jiraa ninkii ahaa Lionel Messi marka Ronaldo mar waliba Messi hadduu maqlo gool u dhaliyay Ronaldo waraabowga ayaa ku kacayo marka wuxuu jeclaan lahaa asigana inuu ciyaaro oo gool dhaliyo xaqiiqatan macalinka Manchester United wuu fiiriyay oo kulankii Newcastle ayuu jeclaysiiyay Ronaldo waxba ma uusan tarin waliba si uu ku ciyaarayo Old Trafford kulankii Tottenham aad buu u adkaa kulankaas macalinkana ma uusan doorbidin Ronaldo markii Ronaldo kooxdu oo uu ciyaarayo iyo markuu ka maqan yahay Man United waxay badisaa markuu Ronaldo ka maqan yahay Man United saawad ognahay kooxaha la yiraahdo Big Six waxay ka badiyaan ilaa iyo hadda 3 kooxahaas waxay kala yihiin kooxda Tottenham iyo xalay ay ka badiyaan iyo kooxda Liverpool iyo Arsenal waayahay intaas haddii aan ku dhaafno Ronaldo iyo xaaladiisa waxaan leenahay meel khaldan xilligan soo gashay Ronaldo kooxda Man United ee hadda joogto uma maleynayo inuu boos ka sii heli doono Manchester United waxaan u maleynayaa Ronaldo kulankiisa ugu dambeeyay oo ciyaaro inuu ahaa kulankii Newcastle hal bil kadib waxaa la aadi doonaa koobka adduunka kadibna Ronaldo asiga ayaa iska tegi doonaba waayahay intaas haddii aan ku dhaafo Ronaldo iyo xaaladiisa kulanka ugu weyn isbuuca waa Chelsea waxay soo dhaweey doontaa kooxda Manchester United labada kooxba waxay horyaalka Premier League ciyaareen min 10 kulan Chelsea waxay badisay 10kii kulan ee Premier League ciyaareen 6 kulan 2 kulan draw ayay galeen 2 kulanna waa laga badiyay Man United sidoo kale waxay ciyaartay 10 kulan 6 kulan way badiyeen 1 kulan draw ayay galeen 3na waa laga badiyay macalinka Chelsea wuxuu maanta sheegay ciyaartoydiisa inay dhameystiran yihiin marka laga reebo N'Golo Kante Fofana iyo Reece James oo dhaawac ku maqan Man United wuxuu sheegay macalinka Man United wuxuu sheegay inuu Ronaldo kulankan la ganaxay oo ka maqnaan doono Harry Maguire waxaa la shaki la gelinayaa inuu imaan doono iyo in kale waayahay labada kooxood markaan dib u fiirino 35 kulan ee ciyaareen tartamada oo dhan Champions League FA Cup iyo Premier League iyo Carling Cup kooxda Chelsea waxay badisay 11 kulan 12 kulan draw ayay galeen 12 kulan kalena Man United ayaa badisay marka waxaa la dhihi karaa kulankan mar waliba ay iskaga hormaanayaan kooxda Chelsea iyo Man United wax u bataa mar waliba draw aniga haddii aan isku dayo saadaalinta birito kulanka maadaama labada koox 5 kulan ee ugu dambeeyay ee soo ciyaareen 4 kulan ee soo badiyeen Man United 1 kulan draw ayay soo galeen Chelsea sidoo kale 4 kulan ayay badisay 1 kulan ayay draw soo galeen waxaan isleeyahay tomorrow ciyaartu waxay ku dhamaan doontaa 1-1 ayay full time ku dhamaan doontaa si aan saadaalinayo adigana soo saadaali waa kulanka ugu weyn ee Premier League kulamada kale ee British jiro Nottingham Forest waxay soo dhaweey doonaan kooxda Liverpool Man City waxay soo dhaweey doontaa kooxda Brighton aniga waxaan ku saadaaliyay kulanka Chelsea iyo Man United inuu ku dhamaan doono 1-1 intaas ku soo gabagabeynaa muuqaalkii maantay halkaas ku dhan yahay oo ku maasan tahay la joogistaada sii share garay oo asxaabtaada la wadaag salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh